السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما أنت وحين برنامج كنا ديرة كسارة دونا قبيلة Soomaalidu waxa ay sanado badan ku soo jirtay dagaalo sokeeye oo salka ku haya qabyaalada kuwaas oo galaaftay malaayiin Soomaali ah. Sanad kasta dhulka Soomaaliyeed waxa lagu dilaa kumaan kun Soomaali ah sabab la'aan kuwaas oo lagu dilayo qabiil dartiis. Waxa iyaduna dhabarjo weyn ku ah ummadda Soomaaliyeed dulmiga iyo qoorsiga lagu hayo walaalihiina laga tirada badan yahay oo isir iyo abtirsiin bayna la wadaaga. Arrintaas oo si toos ah uga hor imanaysa Quraanka Kariimka ee Ilaahay u soo dejiyay basharkiisa inay ku dhaqmaan. الله وين وحو كل هي سورة الحجرات آية 16 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. hadda waxa la joogaa xilligeenu ka bixi lahayn aafada qabyaalada oo aynu cagta saari lahayn dhabihii horumarka iyo nolosha dhabta ah. Aynu yara milicsano wadamo ay aafeeyeen dagaalo sokeeye oo salka ku haya qabyaalad iyo isir nacayb oo tusaale u ah ummado badan oo dalalkooda ay burburisay qabyaalad oo ay koow ka tahay ummadda Soomaaliyeed. Dalka Rwanda oo dhaca bariga qaaradda Afrika ayaa waxa sanadkii 1994 uu afka saaray dhabaha halaaga iyo hooga oo ay ku reeqmaan kumaan kun shacabka reer Rwanda ah. halkaas ay isku xasuuqeen qabiilka Hutuga iyo Tutsi labada qabiil oo wada degan dalka Rwanda dagaalkii dhexmaray labada qabiil ee Hutuga iyo Tutsi waxa uu qaatay muddo 100 maalmood halkaas oo ay ku reeqmeen dad lagu qiyaaso ku dhawaad 1 milyan kadib markii ay labada dhinacba ku reeqmeen dagaalkii sokeeye ee qaatay 100 maalmood waxa ay qaateen go'aan wax ku ool ah oo maanta ka dhigay wadamada ugu nolosha fiican la qaaradda Afrika iyo wax soo saar gaadhay ku dhawaad 25 bilyan bal haynu yara eegno waxay abwaanada Soomaaliyeed ka yiraahdeen qabyaalada docadii u wada jeesato ee dhowrato danaheeda ay dul walaala tahay oo adduunka ka heshiiso dadka kama yaraateen way isdabar jaraysaay dubo madaxa way iskala dhacdaa daayinka bidkii goortays wada dooxday baa daad u soo galay dul iyo hoosba waan ugu dhigay wadix dhagaxaade anuu baa damqanay dhaguhu uma daloolaane u bixi waa daadiseen waana dubateen dubaxiisi wada cunteen duhur dharaareed dariiqii toosnaa Soomaalida waa laga dadayay darajada إلى أهنك دون يا هلاء من كتر التستور كي وحيجي دينتي كعروية تكتي ملها قبيلة دي واحد من سمو يعني كبيجا واحد تريع عبد الله السلطان تمعد إلى هين حارستي جنها كورابية رسولك صلى الله عليه وسلم حوي مركو مسلمين تشاقي ذاتك قولي سنة أو كورمي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلم وقعن سنة وغبك عرب كيسا يقعنتي سلقنا وكورنيا هي وراحد أن تمضي كاجلي ما دليسا مساجد كل كان يهددوا تماله أو هو كاجلي على العرق تلك على الدين سندو كان شوال الدين وريا يدين شيء واحد وريا عارسي النوع عارسي يدين شيء دجال الله كسر على يقبل الله نحلا هي دجال الله كسر على الصومالي نحل المحيي كل قلوا يدين شيء وحيا لا في سنكين ملان هي محاكل لو دليا محو كاجل الصدي جنبي هدي أتقفك جليس وقفك عليك كدلي أما ولا كدلي أسجرته أعداء هذا الحكي ليس هي ما هنا شنبا لو سعاره يا فمر كشاغلay حكى الله كانوا حكى niman culama ayaa dhex jooga oo oranaya salaad leedinku malahan oo soon leedinku malahan oo jihaad baad ku jirtaan waa idin ka dhacay sidaas anaga ka dhageysana العلماء وعلماء السوق الذين جلسوا على باب النار الباب كنار تفديا اذك oranaya تعالوا الى باب النار وكالي الباب كنار كالي النار وذكله وايو نك waxa fidyoonaya culama ما إله كبغانيا ما إله يكتي وحكي لي أنت اللي هذا الله ديري ليس سوني سلام بقول لك وارني وحاصل أنت رن قدام بلدك دقلي الأرديسة هاي واحد عجلها كده يستوى قبيلة اللي يسقع عايه واحد يسوق تمالان وقبيلة أحد مسكين عنو كرجال يسوق ما تمالان دين الله عن برنا يسوق ما تمالان إلهي وحوق من الدين في سماية عندك إلهي درسي يعني كوب بالنا ما جرت محل يسوي غير بالبان أنا قال عن وشر غير ولا نليره هاي أو إسلام أنا إلى جرب سوني وان حقيقة بقارن ده ربي فرعون إيه النمرود إيه جبابيل اللي شياطين تقبتنا أنت ما أنت جوكتنا هتقبت بلايها قصة وفعلا وقصة لي إن سلوا إن كان أي لازم نقول نقطة ويوم ما توحك ولا قبنا يا مجرد إلهينا بلنبو ونوغان هذا برنين ونقاجيوي مركز سيدان والبهاء وقاد إلا لحنا ذيو إلا إنكاريو إن وهم محبية ونائية ولا نبع السنة قد حين هذا الشعر مركز كلنا وإن يدك أغانا أنت قبيلات إيه قبيل إيه يعني دون يستجب على السيدان إنا يبلسوا إيه أنك وحبنا قبل حيان
hay dadka diinta markaan anagu ka socono wax naga dhexeeya ma jira seefaan isu wadana qabsada berito in layn doona waa macna waayo adigu wax xisaan noo galaysa ma jira waman lam yaxkum bima anzala Allah fa ulaikum alkafirun kitaabka rabbi ninka wax ku xukumi oo asaga u laabana gaal way waa daalim waa fasiq la shaka fi hay marka la isu imaanayo oo la dhiganayo gar waxa la leeyahay karni calay karta nooga dhigin inuu diin soo galin meesha in Allah inta saaqafta muslimiin ma ahan galta waxaad u dhiibataan kuwa aan dukanayo tawaaka xolayaalka tawaaka xunka tawaakada si tubdiisa kacay war tubdiisa goormay ka hado adiga kugu dhacay ilaa kugu dhacay war go'ilaa magaca subhanahu wa ta'ala hay anaga marka diinta nala ku dul akhriyo waxa ka sii qaadayna kibir oo mid kale iyo waxa nigu qabiilka waxa soo kabta waxa la ka dareemo oo reebeliya taas ku waranay hay midka ugu khayrka badan maxuu leeyahay markuu banaanka u baxo wallahi wadaadkii ma jeedayay laakiin yaa taas yeeli kara waa adiga waxaan hay waa midka ugu khayrka badan midka kalena wuxuu isku dayaa bal soo qabiilku soo ogaan lahaa oo hadduu aad qabiilkiisa noqon weydo wax kaaga sheegaya marka hadduu qabiilkiisa wax kaaga aad noqoto waxa la oranayaa ninkaas naga dhashay caalimka ma la arkin miya oo ku baan waxa uu yahay mala sidaas kaliya weeye wax kaloo meesha lagu hayaa ma jiraan war ilaahay laga boqo subhanahu wa ta'ala hadda dadka kalsoonida ka wada dhinsan oo waxaad si leedahay haddii mid reerkiinii meesha qabsadana waxaad si leedahay xuquuqdaada waayimaysid saasaa kaa dhaadhacsan haddii laakiin reerkii aysa hayseen uu meesha qabsado waxaad si leedahay adiga dee shadaaftaa lagu laabayaa waxba kuuma hadhsana marka waa inaad dumisaa adiguna ka qabiil ahaan haddii dawladda nin reer hebele qabtay waxaad leedahay dhowr waxba waan waaye kow askarta hadduu isagu yeesho dee wuu gumaysanayaa marka waa inaanu dawladdiisu kicin hadduu dhaqaale helo oo iga dhaqaalo bato wuu gumaysanayaa waa inaanu dhaqaale helin intaasoo dhan xataa haddaa u sinnaataan waxaad leedahay dee reeru way sufaanayeen reer hebel weligiiba madaxweynaha ma qabanine madaxweyne qabashadu waa tashriif buu arkaya dee reeruhuna bays waxa uu ahaa attafaakhur in laysu faano marka faankii baa laydinka helaya marka waa inaad ogolaanin si aanu faanka kaaga helin waa inaad ogolaanin inuu meesha tago idan dawla alxadiida qaabkan ay u dhisan tahay iyo muctaqadaadka qabaliga aynu rumaysannahay isma waafaqayaan iyadoo aan iswaafaqay maynana waxaynu qaadanay caqli odhanaya 4.5 iyo 5 iyo reeraba in wax loogu qaybiyo way adagtay inay labadaas iswaafaqaan waa waxaan suurtagal ahayn idan waxa suurtagalkii waxa weeyaan baan leenahay dadkan kalsoonidooda in dib loo dhiso in mabaadi' laga dhaadhiciyo ay wada halgamaan waxay u tanaafusayaan inuu tanaafus khayra noqdo oo khayrka lagu baratamo dadkan inuu cadaalad wada helo oo cadaaladdu ay ka sinaadaan qadaayaadkaasi haddii la helo waxa fududaanaya inay bulshadani bulsho wada nool oo wada dhaqanto oo wax wada yeelata ay noqoto iyagoo mabaadi'daasa waxay soo saartay qutaybata binu muslim ilbaahiliyi ka dhigtay halyeyga ugu weyn muslimiin inuu noqdo ee bariba ka dagaalgala isagoo qabiilkiisii baahilo yahay oo qabiilka gabayada ka tirinayna uu yahay inuu noqdo isbeddelka waxa abuuraya markaa dawladnimadu ma samaysmayso reerkaa dib u liqaya waxa qudha isbeddelku uu ka samaysmi karaya waa cuquusha iyo quluubta bini aadamka haddaynu kuwaa bedelnay siday u fakerayaan reerkoo dhammi siduu isu fakerayay iyo isbeddelka dawladnimoba waa samayn karna markaa sala allahu calaa nabiyi muxamed wacala aalihi wasaxbi wasallam